Sacuudi Arabia waa mid ka mid ah dawladaha ugu waaweyn masaax ahaan bariga dhexe. Boqolkiiba 95 ka mid ah dhulka wadanku waa saxare lama degaana. Intaa waxa dheer Sacuudigu waa mid ka mid ah wadamada aan roobku badanaa ka diin. Waxa ka daa celcelis ahaan roobab sanadle ah oo qiyaastii gaaraya 130 mililitir oo kaliya. haddana iyadoo sidaa tahay wuxuu adduunka oo dhan u dhoofiyaa khudaarta, timirta, cuntada baalka leh iyo caanaha. haddaba Sacuudiga haddaad ka eegtid maapka Google-ka waxaad ku arki doontaa goobooyin waaweyn oo cagaar ah oo ku samaysan dhammaan maapka wadanka. Goobooyinka waaweyn waa dhul ay dawladdu xidhay oo lagu talagalay in dalag kala duwan lagu beero. waxaana dhulka sidaa u weyn waraabintiisa loo isticmaalaa systemka afka qalaad lagu yiraahdo Center Pivot Irrigation. mashaariicda beeraha lagu horumarinayay ee sanadihii ugu dambeeyay laga waday boqortooyada Sacuudi Arabia waa mid heer caalami ah. tusaale ahaan sanadkii 1961 Sacuudigu wuxuu lahaa dhul la beeran karo oo gaaraya 11400 oo square kilometers. boqolay marka loo bedelana wuxuu dhulkaasi boqolkiiba eber dhibic 5 ka ahaa guud ahaan wadanka dhulkiisa. laakiin 2016 wuxuu yeeshay dhul la beeran karo oo gaaraya 35000 oo square kilometers waana 3 jibaar intuu ahaa 60 sano ka hor. 35000 oo kilomitir isku wareegih waa masaaxo dhul ah oo ka weyn wadamada Belgium iyo Armenia. 60kii sano ee la soo dhaafay Sacuudi Arabia waxay 24000 oo kilomitir isku wareega oo dhul saxare lama degaan ah u bedeleen dhul barwaaqo ah oo wada beera ah. 24000 oo square kilometers dhul yar ma aha, waa dhul ka weyn wadanka Slovenia, sidoo kale waa dhul 2 jeer ka weyn dalka Qatar. haddaba su'aashu waxay tahay qaabkeebay dhulka sidaa u weyn ee saxaraha ah ugu bedeleen dhul barwaaqo ah. waa hagaag, biyuhu waa shayga ugu muhiimsan ee lagu bedeli karo dhulkan saxaraha ah. sidaa awgeed sida kaliya biyo ku filan lagu heli karaa waxay noqotay in la qodo dhulka. waxaana injineeradaha ka qaadeen inuu Sacuudigu 10000 oo sano ka hor ahaan jiray durdur barwaaqo ah. sidaa awgeed ay laga maarmaan tahay in la soo saaro harooyinka biyaha ah ee fadhiya saxaraha hoostiisa. iyadoo ay ka go'an tahay inuu Sacuudigu dhulkiisa isbedel ku sameeyo wuxuu balaayin dollar ku qarash gareeyay in la soo saaro biyaha. waxaanay soo saaristii biyaha uga faa'iideysteen inay ka sameeyaan beero aad u waaweyn oo xitaa dalagga ka soo go'a caalamka loo dhoofiyo. guud ahaan waraabka beeruhu waxay u baahan yihiin juhdi badan iyo in biyaha si fiican loo gaarsiiyo dhammaan beerta iyadoon la dhibaateynayn dalagga. sidaa awgeed qaabka ugu wanaagsan ee lagu maamuli karo biyaha beertana lagu wada gaarsiin karo waraabintu waa adeegsiga qalabka pivot. Center Pivot Irrigation waxa aasaasay beeroole hore oo Mareykan ah oo lagu magacaabo Frank Zibach. waxaana loo aqoonsan yahay qalabka ugu fiican ee beerta u qaybin kara biyaha. sida muuqaalka laga garan karo qalabkani wuxuu u samaysan yahay qaab wareega waxaana la dhigayaa bartanka beerta. waxaanu awood u leeyahay inuu beerta waraabiyo sidoo kalena gaarsiiyo biyaha fertilizerka, chemicalska iyo maadooyinka beerta ka dila cayayaanka iyo dhirta kale ee ka soo agbaxda. Sacuudigu wuxuu qalabkan isticmaalay 60kii sano ee ugu dambeeyay wuxuuna noqday mid uu ka faa'iiday. sidaynu hore u sheegnay Sacuudigu wuxuu helaa roob aad u yar. haddaynu ka hadalno dhulka buuraleyda ah galbeedka Sacuudiga ku yaala inta badan roobka ku daa wuxuu ku dhacaa badda. taasi waxay ka dhigan tahay in dhulka galbeedka Sacuudiga ku yaala ay ka jirto biyo la'aani. sidaa awgeedna aanay suurtagal ahayn in wax laga beero. Sacuudigu isagoo og inay adag tahay wax ka beerista dhulka weyn ee galbeedka xiga haddana wuxuu degay qorshe kale oo macquul ah. wuxuu dhul beereed ka iibsaday wadamo badan oo caalamka ku kala yaala sida Mareykanka, Indonesia, Argentina iyo Tanzania. wuxuu sidoo kale carrada wax beerta ka soo iibsaday dawlado badan oo qaaradda Afrika ku yaala. laakiin waxaa jira qaabab kale oo dabiici ah oo saxaraha Sacuudiga loogu bedelay dhul beereed. tusaale ahaan waxaa jira goob saxara ah oo lagu magacaabo Al Bayda oo ku taala galbeedka Sacuudiga oo mar dambe loo bedelay dhul barwaaqo ah. taariikh ahaan goobtan Al Bayda waxaa degi jiray qabiilo reer baadiye ah. kadib dhulkii saxaraha ahaa way ku noolaan kari waayeen waana iskaga guureen. laakiin goobta waxa booqday 2 amiiro Sacuudiyaan waxaanay go'aansadeen inay bilaabaan mashruuc goobta lagu cagaarinayo dib u dejinna loogu sameynayo qabiilada. waxaana mashruuca hogaaminayay 2 aqoon-yahan oo beeraha ku takhasusay. waxaanay kala ahaayeen Niels Beckman oo ka socday jaamacadda Stanford iyo Muna Hamdi oo ka socday jaamacadda Harvard. 2 aqoon-yahan waxay la degeen qabiiladii waxaanay la noolaayeen 8 sano. waxay u sameeyeen dhagxan nabaad guurka ka hortaga. waxay u dhiseen biyo xidheeno waaweyn, barkado. waxay u jeexeen gacmo biyaha roobka soo qaada oo biyo xidheenka iyo barkadaha ku shuba. sidoo kale iyagoo goobta si wacan u deegaaminaya waxay dhiseen guryo shimbiruhu galaan. waxay kaloo goobta ku beereen shinni. mashruucanna wuxuu socday ku dhawaad 7 sano. laakiin 2016 Sacuudigu wuxuu goobta ka jaray maalgelintii waxaanay 2 sano oo isku xigta noqotay abaar. waxaana dhintay badanka dhirtii. gebi ahaanna mashruucu wuxuu ku dhawaaday inuu burburo. balse 2018-2019 waxa goobtan ka da'ay roobab badan. dhaamamkii aqoon-yahanadu hore uga sameeyeen goobtan ayaa qabtay biyihii roobka waxaanay dib u nooleeyeen ciidii. waxaanay goobtii saxaraha u ekaa isku bedeshay dhul barwaaqo ah oo wada beer ah.